Johannesburg ee wadanka Koonfur Afrika ayaa lagu qabtay kulan ay iskugu yimaadeen culimada Soomaaliyeed ee ku nool wadankaas. Kulanka ayaa looga hadlay arrimo dhowr ah ku saabsan waxa magaalada Johannesburg inooga soo diray wariyaheena Ciidruus Cabdi Xasan. dalada culimada Soomaaliyeed ee dalkan Koonfur Afrika ee Albayaan ayaa kulankoodii 14aad yeeshay magaalada Johannesburg. dalada culimada Soomaaliyeed ee dalkan Koonfur Afrika ee Albayaan ayaa kulankoodii 14aad yeeshay magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika. culimada ayaa isaga kala timid 9 gobol ee dalkan Koonfur Afrika, wuxuuna ahaa kulankani mid ay kaga hadlayeen waxyaabihii u qabsamay dalada culimada Soomaaliyeed ee Albayaan. dalada culimada Soomaaliyeed ee Albayaan ee dalka Koonfur Afrika ayaa qaabilsan dhanka dacwada diinta islaamka, meherka, guurka iyo duugta dadka dhintay ee muslimiinta ah ee dalkan Koonfur Afrika. shirkan oo ay ka soo qayb galeen dhammaan madaxda ugu sareysa dalada culimada Albayaan ayaa dadkii ka hadlay waxaa ka mid ahaa gudoomiye ku-xigeenka guddiga dacwada Albayaan Sheikh Ahmed Dere iyo amiirka dacwada ururka Albayaan Sheikh Hassan Gure. waa kuwan hadaladoodiina waxaa ka shirkan waa shirkii 14aad ee shuurada golaha Albayaan ee Koonfur Afrika magaalada Johannesburg oo xarunta u ah golaha Albayaan ayaa waxa lagu qabanayaa shirkan board meeting-ka Suleiman Nani Memorial. insha Allah taala meeshan waxa wada fadhiya golihii shuurada oo dhameystiran oo kala yimid gobolada wadanka oo dhan. waxaan rajaynaynaa insha Allah maanta iyo berri inuu shirkaas noo socdo haddii alla idmo uu berrina soo dhawo. inta badan waxaa laga hadlaa dacwada iyo istaraatiijiyadeeda iyo waxqabadka guud iyo wixii sanadkii hore lasoo qabtay iyo waxa qabsoomi doona sanadka soo socda. Sheikh Ahmed iyo dhammaan acdaa shura ragga shurada meesha fadhiya oo ka kala yimid gobolada wadanka oo dhan Koonfur Afrika. walaalayaal sida sheekhu sheegay soo dhawaada markay ku soo dhawaada fadhigan oo aad daaima kaga haystaan arrimaha dacwada iyo wixii caqabada hor yaalla dacwada iyo wixii loo baahan yahay in la qabto sida sheekhu sheegay wixii sanadka hore lagu ballan in la qabto qabsoomi waayey. kulli wax badan waa qabateen khalaha insiyo jazakumullahu khayr. ميزانك الحصاد الله سعر وحق صومتين كيدين من الله يفوز بالله. شاكر عبد الله شيخ آدم قدوميها البيان الإسلامي كونسل ترست إيستن كيب ما أنتم حقيقة بقول لي مؤتمر كي أفريت بناد الشورى جودها وحكيوا هذا اللي نهار مرنت الدعوة ضد مسلمين تاع جودها هي الصومالي جارهم با أنا هذا كهذا إيستن كيب هانو كلامته دعوة جود وين بمشي كسعتها الأخبار تدونا وعيقلين تأمض يمجرد خاصة هوانك يمجرد عيالك وهنا مدارس في رمضان وعرض الصوماليات لو برا أفكاري هوية الصوماليات لو برا دين الإسلام كا لو برا مدرسة أخلاق ده ونكسن وعكمد إن علمها لو تقبل ما دام قربت شوغان أفكار هوية الصومالي read and write لو ضم إن مدرسة إن قري كلام أين آخرين كلام. مقعد وعبد القادر جيع وعبد الله قبل كارستنباك هالكاس أو البيان وكلية هاي مركز وين أو لو برا دين الإسلام كا halkaan marka maanta waxa lagu falaqeeyay sidii loo hormar lahay dacwada iyo diinta dadteena muslimiinta oo Soomaaliyeed islaamkooda ay u fahminayeen ayaa aad loogu falaqeeyay. qaadano shirka ujeedadiisu waxa weeye horumarinta dacwada gaar ahaan anagu haddii aan nahay Western Cape runtii dacwadu noocyadeeda oo dhan waa wadnaa. alxamdulillah masaajidkii waa wadnaa iyo tacliintii masaajidka madrasadii iyo waxbaridii ardada yar waa wadnaa. waxaan runtii oo ninka la yiraahdo garab taagan Sheikh Asad jazakallahu khayran وsi gaar ah xooga u saaraa iyo anaguna aan la garab taaganahay barnaamijka ku saabsan dalka wadanka aan ugu nimid in la islaamiyo oo diintii la gaarsiiyo. ilaahay mahadi hawl badan baa socota. haddana soo dhaafay ugu yaraan 12 ruux oo diinta ku cusub ayaa soo islaamay. ilaahay mahadi waxaan rajaynaynaa insha Allah inaan sii ballaarino barnaamijka isaga ah. Ciidruus Cabdi Xasan TV-ga caalamiga Universal Johannesburg Koonfur Afrika.